أنا magacaygu yahay Cabdi Aadan Abdille ahna gudoomiyaha degmada Bitaale waxaan rabaa inaan salaamo gudoomiyaha gobolka wasiirada wasiir Falagle Axmed Sharaf Falagle iyo waftiga qiimaha badan loo la socday oo waxaan rabaa inaan mahad celiyo fiirooyinka ay fiirinayaan baahida deegaanka jidha aad baan ugu mahad celinayaa madalayaal waqti badan bay nagu soo bixiyeen meel badan baan soo marnay hadda meeshaan taaganahay waa saldhigii oo ah sida loo jeedo qabyada annaguna waxaan ahayn deegaanka Bitaale dadkii joogay soo qabta shaqooyin badan ay ka mid tahay hoyga nabadda oo aan rabno inaan maaragtay colaadii aan ku dimino haddana waxaan taaganahay waa saldhigii oo qabyo naga ah u baahan in loo dhameystiro annagu waxaan nahay dadkii boqolkiiba 40 la yiri hadda 60 sii marayo waa naga qabyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waftiga sharafta leh in loo dhameystiro naloo qalabeeyo baan doonaynaa wasiirka amniga dawladda Galmudug madaxweynaha ciidankii in loo tababaro naloo soo qalabeeyo degdegna laga soo gaaro meesha hadda la dhisayo hoyga nabadda waxay ka aasmaysaa waa meeshii colaad ugu horeysana ayay ahayd Bitaale sida gudoomiyuhu sheegay Bitaale waxay diyaar u yihiin Bitaale oo midowga oo dhan waxay diyaar u tahay inay maanta nabad hesho waxay diyaar u tahay inay horumarka u toojiso nabadii salkan u dhigaynaa horumarka naga magan baarnaa inay magaalooyinka intaan colaadda ku mashquulsan horumarka gaarina ka daba tagno hadda waxaan taaganahay waa saldhigii oo ay bulshada ku dhisteen xoolahooda oo ariga soo arooray haba neef laga reebay maantana wuxuu marayaa dhammaad wuxuu u baahan yahay dayactirkii ka dhamaystirka ahaa qalabkiisii kombiyuutaradiisii iyo ciidankii la keeno waxaan wasiirka amniga runtii aan ognahay inuu yahay nin u jajaban wax ka qabadka amniga waxaan ka codsanaynaa anuu afka gobolka ku hadlayaa shacabka in naloo dhamaystiro saldhigan ciidankiisana la siiyo oo deegaankan kala qoro dadka deegaanka ku nool oo ciidan astaayila oo akhlaaq u leh in la qoro oo lagu tayeeyo la tababaro taas codsi baan ka jirnaa in askartaas markii la qalabeeyo ka hor intaan la qalabeyn loo dhamaystiro oo deedkiisa la wareejiyo saldhigan loo dhamaystiro